daawo caalamka oo dhan laga heli karo oo qiimaheedu jaban yahay ayaa la sheegay in loo helay badbaadinta bukaanada sida daran uu hayo cudurka COVID-19 sida ay sheegeen khubarada caafimaadka ee dawladda Ingiriiska. daawadani oo xaddiga laga qaadanayo uu yar yahay ayaa lagu magacaabaa dexamethasone waxaana loo arkaa in ay tahay guul aad u weyn oo laga gaaray dagaalka lagula jiro fayraskan dilaaga ah. waxay daawadani qayb ka tahay tijaabadii ugu weyneed ee caalamka lagaga sameeyay dawooyinkii horay u jiray si loo arko in ay wax ka qabanayaan xanuunka coronavirus. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in ay si buuxda u caawin karto 4 meelood 3 meel oo ka mid ah bukaanada xaaladahooda laga qoostay ee ku neefsanaya qalabka loo yaqaano ventilatorska ee lagu xidho dadka uu naqasku ku dhago. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in haddii daawadani loo isticmaali lahaa markii ugu horeysay ee uu COVID-19 uu gaadhay UK ay badbaadin lahayd nolosha dad gaadhaya 5,000 oo hadda geeriyooday. dalalka saboolka ee dunida ee cudurka COVID-19 uu aad u saameeyay ayay faa'iidada ugu weyn u noqon doontaa maadaama ay tahay dawo aad u qiimo jaban.